السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan diirada ku saarayno dilkii loo geystay samafalad Almaan Almaas oo lagu dilay 20kii November 2019 magaalada Muqdisho xarunta xalana dhexdeeda. qoraalkan aan soo gudbinayna ee ku saabsan Allah u naxariistay marxuumad Almaas waxaa bartiisa Facebook ku daabacay Yuusuf Garaad Cumar wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya wuxuuna u qornaa qoraalku sida tan. lama fududaysan karo geerida Almaas iyo goobta ay xabadu ku dishay. Almaas Allah u naxariisto Rabbi ha u hooyo jannatul firdawsa waa ubax noloshiisii la dhaafiyay isagoo curdin ah waalid walaal qoys iyo saaxiibadaheedii faraha badnaa samir iyo iimaan Allah ka siiyo. goobtu waa gudaha xayndaabka lagu tilmaamo in aad loo ilaaliyo kama foga dhabaha ay diyaaraduhu ku rooraan marka ay kacayaan iyo marka ay soo cagadhigtaan iyo waliba hool lagu doortay 2 madaxweyne iyo 2 gudoomiye baarlamaan. lama huraan in la sameeyo baaritaan sax ah cilmi ku qotama oo su'aalaha macquulka ah ee taagan u hela jawaabo aan la burin karin. haddii qalliinka xaqiiqadoonka ah ee geerida dabadeed lagu hayo xagasha ay xabadu ka gashay jirka Almaas lana helo jooga ay dhulka ka sarreyso meesha ay xabadu uga dhacday waxay fududaynaysaa in la helo barta ay xabadu dhulka uga dhici lahayd haddii aanay Almaas ku dhici lahayn iyo xagasha ay dhulka ka samayn lahayd. marka intaasi la helo ama dhib badna qiyaas xisaab ku qotonta lagu soo saaro jihada xabadu ay ka timi iyo marinka ay hawada ka soo dhex jeexday halka uu ahaa badda maadaama la hayo haddii loo abtiriyo oo la ogaado nooca qoriga ay ka dhacdo masaafada ay gaari karto iyo xawaaraha ay ku safarto lana og yahay barta ay dhulka uga dhici lahayd iyo xagasha ay ku dhici lahayd waxaa soo baxaysa karaarta xabadda waxaana fududaanaysa in la garto halka xabadaasi laga soo riday. jooga in la soo saaray ma dhibadna waa cabirka oogada kursiga ay fuushaneed uu ka sareeyo dhulka oo lagu daray joogeeda fadhiga ah oo ku eeg barta ay xabadu uga dhacday. cabirkaasi waxaa lagu soo saari karaa in qof Almaas la dherer ah lana miisaan ah lagu fadhiisiyo kursigii ay fadhiday iyadoo kursiga uu saaran yahay culeys leeg wax kasta oo markaa dul saarnaa kursiga gaadhiguna uu taagan yahay isla bartii. sidoo kale wuxuu qoraalkiisa ku sheegay Yuusuf Garaad Cumar wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya waxaan iska mala awaalaya ee waa baaritaan noociisa oo kale caalamka hore looga adeegsaday. marka intaasi jawaab loo helo ayaa laga shaqayn karaa sidii cadaalad loogu heli lahaa marxuumadda loona xaqiijin lahaa inuu sugan yahay amniga garoonka kan howlka doorashooyinka iyo kan shirarka waaweyn oo la isku halayn karo.